kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meelbad caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena sirdoonka ee siyaasadda oo aan ku soo bandhigi doono qodobo ay kamid yihiin beeraleyda qaadka dalka Kenya ayaa sheegay in Hargaysa aysan siin karin suuq u qalma midka Muqdisho booqashada madaxweynaha maamulka Soomaaliland ee Nairobi ay xiisada uga sii dari karto dhanka kale dawladda Kenya ayaa sheegtay xilliga ay bilaabayso duulimaadyada tooska ah ee magaalada Hargaysa madasha musharaxiinta mucaaradka iyo qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada dalkana waxa ay kulan ku yeelan doonaan toddobaadka soo socda magaalada Hargaysa Faransiiskuna waxa uu dayuuradaha casriga ee Rafale ka iibinaya dalka Greek oo xiisadii kala dhaxaysa wadanka Turkiga qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan ku soo dhawaada barnaamijka aynu ku horeysiinay Greek ayaa sheegay in 18 dayuuradood oo nooca Faransiisku sameeyay loo yaqaan Rafale ay soo gaarayaan sanadkan soo aadan taasoo qayb ka ah qorshaha lagu casriyeynayo saddexda laamood ee ciidamada dalka Greek xilli ay xiisadii kala dhaxaysa wadanka Turkiga ra'iisul wasaaraha Greek Kyriakos ayaa sheegay in heshiiskan uu gabagabo marayo iyada oo ay ka wada shaqeynayaan dawladaha Faransiiska iyo qandaraaslayaal kale isaga oo arintan uga dhawaaqay gudaha baarlamaanka Greek oo ansixinayay miisaaniyadda sanadka 2021 mashruucan ayaana waxa uu ku kacaya 11.5 bilyan oo euro Greek oo Turkiga gaashaanbuurta NATO kula jira ayay isku hayaan xuduud badeed iyo gaaska ku jira bariga badda cad oo ay Turkigu yihiin dalka ugu xeebta dheer iyada oo ay xiisadu sii xumaatay sanadkan lagana baqayo in ay gaarto gacanka hadal ciidan qorshaha lagu casriyeynayo militariga Greek oo 5 sano la soo qorsheynayay ayaa waxa ay qayb ka yihiin dhammaanba saddexda laamood ee ciidamada dhulka cirka iyo badda oo 15,000 oo askari oo cusub lagu kordhiyay waxaana barnaamijkan kamid ah iibsiga maraakiibta cusub daroonada iyo helikabtarada gujisyada toogta in la casriyo dhammaanba raxanta dayuuradaha loo yaqaan F-16 taasoo ay sanadka 2027 qabanayso shirkadda Mareykanka ah ee Lockheed Martin dawladda Greek ayaana sidoo kale isbahaysi horle la wada dalalka horay ugu dhawaa sida Faransiiska, Israa'iil iyo Mareykanka iyo kuwa cusub sida Masar iyo Imaaraadka Carabta waatay daawadayaal hadii aynu qodobkaasi halkaasi kaga gudubno bal iminkana aynu eegno beeraleyda jaadka dalka Kenya ay khasab ku tahay in ay muddo kala sugaan suuqa qaaliga ah ee Soomaaliya oo ay maalintii ka heli jireen 16 milyan oo shilinka Kenya kadib markii Soomaaliya xiriirka u jartay Kenya sida ay Soomaaliya ku dhawaaqday saqdi dhexe habeenkii salaasadu soo galeysay maalin uun kadib markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu qaabilay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi sida uu qorayo wargeyska The Star talaabadan ugu dambeysay waxa ay nagu tahay dhirbaaxo weyn maadaama aynan suuq u helaynin dalageena ayaa uu gudoomiyaha beeraleyda qaadka dalka Kenya waxa uu sheegay in Muqdisho ay tahay suuqa ugu ballaaran ee ay u haysteen jaadkooda isaga oo tilmaamay in Soomaaliland aanay lahayn mug iyo qaad ay ku isticmaali karto kumanaanka tan ee ay Muqdisho iibsan jirtay isaga oo sheegay in ay 5 tan oo qurah ka iibsan jireen markii ay socdeen xasaradihii gobolka Oromada ma fahmayno jaceelka cusub ee Nairobi iyo Hargaysa maxaa yeelay waxa uu cusbo ku sii marinaya dhaawaca Muqdisho mana xalinayo ismariwaaga taagan ee u dhaxeeya labada dawladood ayaa uu gudoomiye Munjuri qaadleyda dalka Kenya ayaana sheegtay in ay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ka sugayaan in ay xaliso muranka kala dhaxeeya dhigeeda Soomaaliya balse ay xaaladdu sii xumaanayso iyaga oo caro ka muujiyay talaabooyinka xigay ee dawladda Kenya ay ku casuumtay madaxweynaha maamulka Soomaaliland taasoo ay sheegeen in aysan beeraleyda qaadka dalka Kenya dani ugu jirin waatay daawadayaal hadii aynu qodobkaasi halkaasi kaga gudubno Kenyan Airways ayaa waxa ay sheegtay in duulimaad toos ay ku tagi doonto magaalada Hargaysa marka la gaaro bisha Maarso kadib heshiis ay kala saxiixdeen Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi talaabadan ayaana waxa ay soo horin kartaa xiisada u dhaxaysa Muqdisho iyo Nairobi Kenyan Airways iyo dayuuradaha kale ee Kenya waxa ay duulimaadyo toos ah ka dhex bilaabi doonaan Nairobi iyo Hargaysa dhamaadka bisha Maarso ee sanadka soo socda ayaa lagu yiri war rasmi ah oo ka soo baxay madaxtooyada dalka Kenya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa aad uga carootay booqashada madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi ku tagay magaalada Nairobi ayaa talaabadaasi xiriirka ugu jartay Kenya iyadoo ku dooday in Soomaaliland aanay lahayn sharciyad ay si toos ah uga xiriirto Kenya Soomaaliya ayaana sidoo kale ka sheeganaysa faragelin ka imaanaysa Kenya oo dhanka doorashada Soomaaliya ah qorshahan ayaa imaanaya 5 bilood kadib markii dayuuradda raqiista ah ee Kenya laga leeyahay ee Jambo Jet ay joojisay duulimaadyo ay ka bilaabi lahayd garoonka JKIA ee magaalada Nairobi iyo Muqdisho kadib markii la weydiiyay lacag badan oo caymis ah taasoo loo arkay mid lagu naasnuujinayo shirkado kale
laguna diidayo in suuqa tartan loogu furo. Lama oga halka ay mari doonto dayuuradda Kenyan Airways maadaama ay hawada Soomaaliya xukunto dowladda federaalka Soomaaliya sharciyan dacweyn kartana dayuuradda Kenya. Kenya ayaad moodaa in ay maamulka Somaliland ku cadaadinayso oo uga argoosanayso dowladda Soomaaliya balse taasi waxa ay uga sii dari kartaa xiisadda labada dal. daawadayaal haddaynu qodobkaasi halkaasi kaga gudubno warar soo baxay ayaa sheegaya oo ay xildoon media heshay in toddobaadka soo socda kulan gaar ah magaalada Nairobi ay ku yeelan doonaan musharaxiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada. Kulankan oo ah mid xasaasi ayaana waxa intiisa badan diiradda lagu saaraya xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo ismari waa ka taagan yahay. Ila waraadyo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in dhinacyadaasi si gaar ah uga wada hadli doonaan dooda ka taagan dhismaha guddiga doorashooyinka sanadka 2021. Sidoo kale wararka ay xildoon media heshay ayaa intaasi ku daraya in kulanka u dhaxeeya xubnaha midowga musharaxiinta iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Axmed Madoobe iyo Siciid Deni kadib ay dhinacyadaasi shir gaar ah la yeelan doonaan xubnaha beesha caalamka si ay ugu gudbiyaan tabashadooda ku aadan guddiga doorashooyinka. Madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaana weli soo magacaabin guddiyada doorashada ee heer dowlad goboleed iyaga oo shuruud ku xiray in marka hore la xalliyo khilaafka ka taagan doorashada iyo arrinta ciidanka dowladda ee gobolka Gedo. Si kastaba ha ahaatee kulanka ay yeelan doonaan isla markaana ka dhacaya magaalada Nairobi ayaa ku soo aadaya xilli Soomaaliya ee xiriirka u jartay dowladda Kenya. wixii wareey ku soo kordha waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe. waad ku mahadsantahay daawashadaada.